faahfaahinno ayaa ka soo baxaya diyaarado dagaal oo duqeeya saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose sida warkan uu ku eegayo wariyaheena Yunis Duraan Cali. wararka ka imaanaya degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in xalay diyaarado dagaal ay duqeymo iyo weerar ka fuliyeen degmadaasi. howlgalka ayaa la sheegay inay qaadeen ciidamo watay diyaarado waxaana kadib la tilmaamay in dagaal toos ah uu ka dhacay degmadaasi. waray heshay idaacadda kulmiye ayaa sheegaya in dagaalka ka sokow in ay jiraan duqeymo barbar socday oo ciidamada weerarka ku qaaday degmada caawinayay waxaana la tilmaamay in dhowr kantaal ay ku rideen saldhigyo al-shabaab ay ku diyaarinayeen qaraxyo iyo xarun ay ku tababarayeen dhalinyarada ka mid noqonaysa shabaab. waxaana la sheegay in khasaaro xooggan la gaarsiiyay shabaab sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga. dhanka kale weli waxaan jirin wax war oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo ku aadan ogaanshiyaha khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeynta iyo weerarka ka dhacay Janaale. dhinaca kale shabaab ayaa war ka soo baxay waxay ku sheegeen in ay fashiliyeen weerarkii xalay ka dhacay degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. duqeyntan iyo weerarkan ka dhacay degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ku soo aadaya muddooyinkii u dambeeyay ciidamada Mareykanka iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran kumaandooska Soomaaliya ay kordhiyeen duqeymaha iyo weerarada ay ku qaadayaan xarumaha shabaab ay ka joogaan deegaanada ka tirsan gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.